wanaagsan daawadayaal dhegaystayaal idin ahaantiin baad ku soo dhawaada barnaamijkeenii ahaa aqoonkaal jimcihiisii afraad qaybtiisii afraad waxaa noogu soo dambeysay su-aasheenii sagaal iyo afartanaad aanna maanta ka ambaqaadi doono su-aasha kontonaad una dhacaysa sida tan. bismillaah. su-aasha kontonaad, sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay qur-aanka kelimada alleyl? jawaabtu waa 74 jeer. su-aasha 51aad, sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay qur-aanka kelimada ashams? jawaabtu waa 33 jeer. su-aasha 52aad, sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay qur-aanka kelimada azakaat? jawaabtu waa 33 jeer. su-aasha 53aad, sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay qur-aanka kelimada as-samaawaat? jawaabtu waa 190 jeer. su-aasha 54aad, sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay qur-aanka kelimada alxayaat? jawaabtu waa 71 jeer. su-aasha 55aad, sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay qur-aanka kelimada jahannama? jawaabtu waa 26 jeer. su-aasha 56aad, sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay qur-aanka kelimada arraxiim? jawaabtu waa 95 jeer. su-aasha 57aad, sheeg imise jeer ayaa lagu sheegay qur-aanka kelimada qafuururaxiim? jawaabtu waa 72 jeer. su-aasha 58aad, sheeg suuradda lagu sheegay kaneecada? jawaabtu waa suuratu baqara. su-aasha 59aad, sheeg imise suuradood ayaa ku soo degtay magaalada Makka? jawaabtu waa 86 suuradood. su-aasha 60aad, sheeg imise suuradood ayaa ku soo degtay magaalada Madiina? jawaabtu waa 28 suuradood. su-aasha 61aad, sheeg magaca nebigii lagu naanaysi jiray Israa'iil? jawaabtu waa nebi yacquub calayhi salaam. su-aasha 62aad, sheeg magaca nebigii lagu naanaysi jiray dabiix? jawaabtu waa nebi ismaaciil calayhi salaam. su-aasha 63aad, sheeg labada suuradood ee ka bilowda mucjizooyinka rasuulka sallallahu calayhi wasallam? jawaabtu waa suuratu israa iyo suuratu anbiyaa. su-aasha 64aad, sheeg imise suuradood ayaa ku bilowda alxamdu? jawaabtu waa 5 suuradood oo kale ah faatixa, faadir, ancaam, kaafi iyo saba. su-aasha 65aad, sheeg imise suuradood ayaa ka bilowda nasahada alle? jawaabtu waa 7 suuradood. su-aasha 66aad, sheeg 3 suuradood oo aan lahayn xarafka siin? jawaabtu waa suuratu ikhlaas, kaafiruun iyo quraysh. su-aasha 67aad, sheeg 3 suuradood oo aan lahayn xarafka xa? jawaabtu waa suuratu naas, kaafiruun, calaq. su-aasha 68aad, sheeg suuradda ay aayad walba ku dhammaato xarafka siin? jawaabtu waa suuratu naas. su-aasha 69aad, sheeg suuradda ay aayad walba ku dhammaato xarafka deel? jawaabtu waa suuratu ikhlaas. su-aasha 70aad, sheeg suuradda lagu wada kulmiyey xuruufta carabiga? jawaabtu waa aayadda ugu dambeysa suuratu fatxi ee muxamadu rasuulullah. su-aasha 71aad, sheeg 4 suuradood oo lagu sheegay xayawaanka doonfaarka? jawaabtu waa suuratu albaqara, maa'ida, ancaam iyo naxli. su-aasha 72aad, sheeg 5 suuradood oo lagu sheegay xayawaanka dameerka? jawaabtu waa suuratu albaqara, naxli, luqmaan, arraxmaan iyo jumac. su-aasha 73aad, sheeg macnaha magaca jibriil calayhi salaam? jawaabtu waa addoon. su-aasha 74aad, sheeg magaca boqorkii isku dayay inuu dilo nebi ciise calayhi salaam? jawaabtu waa daa'uud al-nuuri. su-aasha 75aad, sheeg magaca hooyadii nebi yuusuf calayhi salaam? jawaabtu waa raa'iso. su-aasha 76aad, sheeg magaca hooyadii nebi ciise calayhi salaam? jawaabtu waa maryama bintu cimraan. su-aasha 77aad, sheeg magaca hooyadii nebi ismaaciil calayhi salaam? jawaabtu waa haajara. su-aasha 78aad, sheeg magaca xaaskii ugu horeysay ee uu guursaday nebi moxamed sallallahu calayhi wasallam?
jawaabtu waa khadiija bintu quwaylad. su-aasha 79aad sheeg xaaskii nebi ayuub calayhi salaam. jawaabtu waa raxma. wabilaahi towfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.